wuxuu ahaa heesaaga ugu caansan caalamka iyaduna waxay ahayd gabar yar oo la cajabsan isaga dhammaan dadku waxay uga digayeen inuu yahay wiil aan ka fiirsi lahayn oo degdeg lagu jaan qaaday nolosheedana uu burburin doono way ka dhaga furaysatay hadalkoodii wayna ismoogaysiisay waanooyinkoodii wayna guursatay balse wixii ku dhacay 4 sano kadib ayaa ahaa waxaan la rumaysan karin una ekaa sida khiyaaliga oo kale Hailey waxay ahayd gabar yar oo 13 jir ah markii ugu horeysay ay la kulantay shakhsiyad yaab leh oo noloshooda oo dhan u bedeli doonta waa wiil yar oo 16 jir isaguna ah dhammaanna ay ku hareereysan yihiin kuwa badan oo isaga taageersan waa wiilka da'da yar waa fanaanka la holin waayay ee Justin Bieber heesaaga ugu caansan hantidiisuna gaarayso 285 milyan oo dollar Hailey waxay ku dhacday jacaylkiisa markii ugu horeysay ee ay aragtay balse waxay ogaatay wax ka yaabiyay iyada saaxiibadeed ayaa u sheegay inuu xiriir la leeyahay heesaayad magaceeda la yiraahdo Selena Gomez Hailey waxay yaqiinsatay in Justin aysan suurtagal ahayn xitaa inuu soo eego iyada marnaba waxay aragtay in gacalisadiisu tahay heesaayad caan ah iyadana ka soo jiidasho badan tahay gabdhihii saaxiibadeed ahaa ayaa u kala orday in ay sawir la galaan saxiixna ka qaataan si ay ugu faanaan iyaduna waxay go'aansatay in aysan aadin meeshii xafladdu ka socotay si degdeg ah ayay uga baxday waxaan moodayay inay idibsanayso amaba aysan idanaynayn markii aan kulannay markii ugu horeysay dhacdadaas markii ay ka soo wareegtay 6 sanadood Hailey waxay noqotay gabar ka duwantii hore ee ay ahayd waxay yeelatay malaayiin la dhacsan iyada oo taageero ah maxaa yeelay waxay noqotay model dhalinyarada badankoodna waxay doonayeen inay iyada la haasaawaan maalin ayaa iyada oo ku qaadanaysa fasax mid ka mid ah xeebaha ayaa waxay aragtay wax si kadis ah uga yaabiyay waxay la kulantay Justin oo isaguna isla meesha fasax ku qaadanayay sidoo kalena waxa ama ka ku riday markii ay aragtay xitaa inuu magaceeda yaqaano wuxuu u sheegay inuu kamid yahay kuwa kala socda xagga internetka waliba uu yahay mid kamid ah kuwa la dhacsan shaqada ay hayso waxay kale oo ay ogaatay in Justin ay kala tageen gacalisadiisii caan ka ahayd waxay isku dayday inay aad ugu soo dhawaato si ay ula yeelato xiriir saaxiibtinimo oo adag kaniisadda ayay si wada jira u tagayeen waqtiga intiisa badanna fariimaha ayay wadaagayeen xiriirkoodii waxa uu u kordhay si degdeg ah Justin wuxuu awoodi waayay inuu ka qariyo dareenka uu ka qaba dhankeeda wuxuu u qeexay jacaylka daran ee uu hayo waxa uuna u sheegay inay tahay gabadhii ku habboonayd in ay iyada ay tahay Hailey waxa ay dareentay in ay tahay gabadha ugu farxadda badan meerahan dhulka maadaama ay riyadeedii rumowday waxay rumaysan weyday in wiilkii ay jeclayd ilaa iyo yaraanteedii uu noqday mid isaguna iyada jecel farxaddaas dhexdeeda intay ku jirtay ayay waxay ka ogaatay Justin arrimo yaab leh oo cabsi badan ku abuuray iyada waxay u sheegeen saaxiibadeed inuu yahay wiil sameeya wixii uu doono nolosheedana uu ka yeelayo mid adag oo aan loo dulqaadan karin sidoo kale waxay xasuusiyeen tagtadiisii hore ee xumayd iyo fadeexadihii foosha xumaa ee uu sameeyay sida in isaga oo khamraysan uu gaariga xoog u waday kadibna jeelka la dhigay iyo isaga oo la sawiray isaga oo ku isticmaalaya daroogo mid kamid ah xafladaha oo ay la joogeen saaxiibadiis sidoo kalena mar ayaa la xiray isaga oo ku falaadaya mid kamid ah darbiyada wadanka Brazil dhexdiisa sidoo kalena inuu yahay wiil kibiraani ah aadna u adag marka ay wada tacaamulayaan dadka kale mar ayuu ku dhawaaday inuu gacan u qaado mid kamid ah saxafiyiinta maadaama uu damcay inuu sawiro sidoo kalena taageerayaasha ayuu si kibir ku jira ula tacaamuli jiray saas darteed ayuu ku yeeshay dad fara badan oo necab isaga Hailey way iska diiday hadalkooda inay dhageysato mana aysan rumaysan wixii laga sheegayay oo dhan waxay guursatay Justin waxayna filaysay inuu isbedeli doono nasiib darro waxay ogaatay dhankiisa madow kadib guurkoodii waxa ka disku noqotay inuu isticmaalayo maadooyinka daroogada uuna ka diiday inuu joojiyo sidoo kalena waxa uu la dhaqmayay si aan habboonayn oo adag waqtiga intiisa badanna waa uu ka maqnaan jiray waxa uu aad ugu mashquulsanaa xafladooyinkiisa mana uusan danayn jirin iyada marnaba heer waxay gaartay ay hooyadeed telefoon u dirto iyada oo ooyeysa ugana waramaysa dhibka haysta waxay u sheegtay inaysan awoodin inay la noolaato shakhsigan caqli ahaan u xanuunsan waxay ku dhaweeyeen ay ka dalbato furiin balse fikirkeedii ayay dib u celisay waxay yaqiinsatay in Justin xaaladan uu hadda ku sugan yahay ay sabab u ahayd dhibaatooyin hore oo isaga hore ugu soo dhacay noloshiisa weligiis aabihiis garabkiisa ma istaagin si uu xanaaneeyo wiilkiisa una waaniyo sidoo kalena inta uusan caanka noqon noloshiisa faqri ayay ahayd aadna way ugu adkeyd isaga iyo hooyadiisa maskiinta ahba maalmaha qaarkood ma uusan ka heli jirin cunto gurigooda markii uu xaqiijiyay caanimada ciriiriyo iyo culeysyo badan ayaa la darsay maadaama uu ahaa wiil yar oo ku jira da'dii uu ku qaangaarayay marxaladaasna ay tahay mid adag anigu waxaan ahay wiil yar oo khaldami kara sida kuwa ila da'da ah oo dhan balse khaladyadayda mar walba waxay ka soo muuqanayaan shaashadaha
culaysyadaas iyo ciriiryowgaas ayaa sabab ka dhigay inuu maciin bido maadooyinka daraagiska ah oo uu farxad ka raadin jiray, balse bilcagsi ayay ku noqotay. xaaladiisiina waa ay uga sii dartay, murugo aan dhammaad lahaynna waa uu isaga jiray. Hailey markaas ayay dib uga guratay go'aankii furiinka, waxayna go'aansatay inay la joogto ilaa dhammaadka. waxay soo xasuusatay aabbaheed iyo dhibaatooyinkii khatarta ahaa ee ka haystay maadooyinkaas isticmaalkooda. sidaas darteed waxay go'aansatay inay caawiso, waxayna hordhigtay 2 doorasho oo adag. waxay ka dalbatay inuu joojiyo daroogada iyo in si kama dambays ah ay u kala tagaan weligood, labadaas ku daran mid dooro. wuxuu ku khasbanaaday Justin inuu aado meelaha dadka lagu dabiibo iyo dhakhaatiirta cilmu nafsiga ah si uusan u waayin xaaskiisa. waxa uu waqtigu socdaba waxa uu ku guuleystay inuu ka takhaluso maadooyinkii sunta ahaa. xaaladiisii nafsad ahaaneedna way hagaagtay. waxaan ahaa shakhsi aan ku kalsoonay naftiisa, kana cabsada inuu wajaho mushkiladihiisa, balse waxa ay badbaadisay Hailey. markii la cilaajiyay kadib guurkoodu farxad ayuu noqday, balse noloshu waa ku adkay. maxaa yeelay Hailey waxa ku dhacay in maskaxda dhiig uga furmay, waxaana loo gudbiyay isbitaalka. Justin waxa uu joojiyay dhammaan xafladihii, waxa uuna bilaabay inuu xaaladeeda ka warhayo. waxa uu yaqiinsaday inuusan awoodin waayitaankeeda, maxaa yeelay waxay sabab u ahayd badbaadadiisa. nasiib wanaag, xaaskiisa waxa lagu sameeyay qaliin lagu guuleystay, waxaana suurta gashay in rajadii noloshu dib ugu soo noqoto. bila yar kadib musiibooyinkii ayaa labadan lamaane dib ugu soo laabtay. caalamkii ayay kadisa ku noqotay markii uu shaaciyay inuu qabo xanuun aad khatar u ah. xanuunkaas ayaa qofka ku sababaya in wajigiisa qayb dhan joojiso xarakada. nus dhan oo wajigiisa ah ayaa damay, sidaas darteedna heesihii uu qaadayay waxa uu u joojiyay xanuunkaas dartiis ilaa iyo intuu ka caafimaadayo. waqtigaas Hailey waxay go'aansatay inay caawiso odaygeeda xaaladaas adag ee uu marayo darteed. iyada ayaa gacanteeda cuntada ku siin jirtay maadaama uusan awoodin isagu. afkiisa waxaa ka daadanaysay cuntada, sidoo kalena waxay ka caawinaysay inuu dhaqdhaqaajiyo wajigiisa si xaaladiisa caafimaad dib ugu soo laabato. Justin waa qof awood leh, waan hubaa duruuftaas adag inuu ka gudbi doono, waana ku kalsoonahay inuu xanuunkaas ka guulaysan doono. masiibooyinkaas asiibay guurkooda waxay ka yeeshay lamaanahan kuwa awood badan, kana sii awood badanaya marba ka dambaysa. waxa uu sheegay inay Hailey ay tahay jacaylkii cumrigiisa, ayna noqonayso xaaskiisa si abadiyan ah. sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajaynayo inay caruur dhalaan si ay qoys u noqdaan. sida ay sheegtay warar ka soo baxay xaaskiisa inuu Justin sidii hore ka soo fiicnaanayo, daaweyntiina uu ajiibay jirkiisu, wajigiisuna uu iminka dhaqdhaqaajin karo, caafimaadkiisuna taam ku dhow yahay. waad ku mahadsantihiin ducooyinkiinii, taageeradii xaaskayga iyo dhakhaatiirta. maalinba maalinta ka dambaysa waan soo wanaagsanaanayaa. daawade adigana maxay kula tahay? halka hoose ee faalooyinka inoogu reeb.